والرابع كان أفراد الشيخ بكرة وحسود تريناي محوها ظرف الزمان كلمة ده أو مرك هراء وكسو سي جملة تنا وصو شيء أو كسو يري نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة مرك بكرة تاسي إنه جوكتي والرابع كان أفراد بكرة صبح ويوليه وهي إيضا أول النهار مالنت أول كيسوه ومحوها قيبت هراء يا بكرة ليلة مالنت تقول waxaad leedahay azuruka waa ku soo ziyaaranaya bukrata sabtiga subaxdiisa ayaan ku soo ziyaaranaya wa azuruka waa ku soo ziyaaranaya bukratan subaxan ku soo ziyaaranaya midkay rabta ahaato subax maalin subax ayaan ku soo ziyaaranaya azuru waa ficil maadi faacilka waa ana kaafta waa mafcuul bihi bukratan waa darfu zamaan bukra mudaaf asabti mudaaf ilayhi وأزورك بكرة نوال وأزور وفعل مضارع فاعلك وأنا كافت ومفعول به بكرة وظرف زمان منصوب والخامس كان شنات سحرا هي وحول لها مثلا سحور واي اللي سحور يا سحر لي هذا وهو سكن آخر الليل هبينك آخر كيس واي قبيل الفجر فجر كهر وحير كهر قبيل محوى لوجود تسقيري وعلى وزن فعيل أي كسرتا فعيل يفعيل وحلقو تسقيري marka wuxuu leeyahay qubayl al-fajr fajrka horyarowgiisa yani wax yar ka hor loola jeedaa qablo qubayl تقول waxaad leedahay daakartu waxaan ku celceshaday oo muraajacistan akhriyay darsigaygi saxaran xilli suxuura oo xilli salaada ka hor ah xilligaas waa xilliga wax la barto xilligan dhalin yareen muxuu ahaa xilligaas aan kutuba akhrisan jirnay laakiin hadda xilligaas ka daaya bacda salaad subax aba dhibaato lagu qabaaba وكذا وعليا مركز ذاكرت وحن مراجعيست درسي سحرا حل سحورا ذاكرت فعلا وفاعلا درس مفعول به فتحة سماء مقدرة على ما قول يا المتكلم منع من ظهورها اشتغال محل بحركة المناسبة درس مضاف يا المتكلم مضاف إليه مبني على سكون في محل جر سحرا هو ظرف زمان منصوب علامة النسب فتحة ظاهرة على آخره والسادس كان لحد غدا بالرواية وهو سوء اسم مقعواية لليوم مالنت ومقعها الذي يوم كاسو بعد يومك مالنت هذا كذب هذا يعني مالنت هذا تقول حجرت كذب هذا يومك قدم بيا مالنت هذا كجرت الذي يوم كاسو أنت هذه في دحي ساعات هاي مالنت دحي هذا قص وانت مالنت قدم بيس يومك تقول وحل إذا جئتني أدي تمادين غدا بري أكرمتك وكرامينا يا وكذا إذا ظرف لما يستقبل من الزمان اللي جيت فعل وفاعل والنون وقايته يا المتكلم مفعول به من على سكون في محل نصب قد ظرف زمان منصوب ده أكرمتنا فعل وفاعل ده والكافنا مفعول به ده بنعرف في محله محوها نصب محوها على رأي البصريين مرك القاعدة لكن على رأي الكوفيين إن يشقين إذا أو جوازمتي فعلين كالجزمين يستي آمسين وبعد ثانية واحدة والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم فعل الشرط لها يعني أكرمتك مرك الضميانة والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم جواب الشرط لها كوفيين لكن محوها بصريين سيدا سمع يحرابان وإذا شعر خاصة أي كتها أي شغاشلون إيا بصريين waxay qabaan idaadu markay shicirka kaliya gashay shaqeysaa laakiin kuwa kale mudlaqan way leeyihiin kala qaad ma leh meel walbay ku shaqeysaa wasaabicu kan todobaad catamatan fiidki waaye ama geelmaalka xilliga la dhihi jiray waa wuxuu ahaa xilliga salaatul cishaa la dukado wahuwa isaguna ismun muxuu ahaa magac waaye isimkoo lithuluthalley habeenka mataqaanaa saddex dhigiis dhig ka mid ahaaday weliba al awali horeeya habeenka marka saddex loo dhigo saddex meelood meeshiis way ugu horeeya waliba waa meesha culimadu muttafaq calayhi ay ku yihiin mataqaanaa salaatul cishaa in waqtigeeda rasmiga ay tahay ilaa nisfu leyl muxuu ahaa ayaa mataqaanaa culimada muxuu ahaa ay rajaxayaan muxuu intaan maalikada ka ahayn inay fadli badan tahay maalikada oo imaam maalik wuxuu leeyahay thuluthul leyl al-awwal ayaa mataqaanaa cishaa ugu fiican culamada kale waxay leeyihiin ilaa nisfu leyl nisfu al-awwal ayaa ugu fiican laakiin bacda nisfu al-awwal waa la isku haystaa
ragga banaynaya shaaficiyiinta iyo xambaliyiinta iyo shaaficiyiinta waqti الاختيار aan dhahay waqti الجواز ba ha dhahayna shaaficiyiintu muxuu ahaa xanaabiladuna waqti daruura ha dhahayna hal xadiitay daliishanayaan markaas xadiisna waa lagu haystaa marka nisf الأول ayaa ugu fiican isha wixii ka dambeeya ilaa inuu ka aqbalana macquul in lagu diido wajiga la soo dhuftana macquul waxa la isku huba ayaa mataqaana la sameeyaa marka waqtigaas ayaa la yiraahdaa catama تقول waxaa leedahay saazuruka waa kusoo ziyaaranaya catamatan geelmaalka ama fiidka ayaan kusoo ziyaaranaya saazuru alsino xarfu tanfiis azuru ficil mudaaric faacilka waa ana والكاف مفعول به من على فتح في محل نصب عتمة ظرف زمان منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره وثامن كان سيدي صباحا وهير وهو أسقنا اسم للوقت وقت أيوه اسم مقع للوقت وقت أسقنا الذي وقت قاسو يبتدي وكب اللابنا من أول نصف الليل هذين كان نصف جيسا أوهر يكب اللابنا نصف جيولي الثاني امحوها مش اسمع الذي كاسو يبتدي كب اللابنا من أول نصف الليل هذين محابين كان نصف كيس أول كيس الثاني لبا نصف اللباد هابينك نصف اللباد هابينك أول كيس كب اللابنا أنا هدي أنا مسكحتين كحساب لهن ساعتنا 10 عندي لهن وحي محوها هابينك ميد نايت كأدنا هابينك محوها 12 كأدنا بي أما الله بيت 1 كهابينك أما ساعتنا 10 صباحا وعندي لهن وتقنا صباح لكن ساعد لغم حسابي عربتي هو ساعد وحكو حسابي مجرين marka habeenkuna wuxuu ku xiran yahay dabcan meeshii oo muxuu qoraxdu ay kala waxa laga yaabaa anaga in marka qaar kood qoraxdu ay saaca muxuu ahaa 9 iyo ka sii dib ay noo dhacdo marka kuma xirna saacad wax marka wuxuu leeyahay niska habeenka niskiisa labaad bilowgiisa ayaa sabax ka bilowda ila zawali qoraxda zuulitaankeeda inta laga gaaro oo zawalka waxa la zuulitaanka ma qoraxda inay dhacday dhex bartanka maalintii qoraxda markay ku taagan tahay inay wax yar dhinaca galbeedka ay uga leexato dhex bartanka zawalku waa xiligaas تقول وحلا سافر أخي ولك يا سفري صباحا صباح دي وسفري سافر فعل ماضي أخي وفاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل يا المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة أخي مضاف ويا المتكلم مضاف إليه من على سكون في محل جر صباحا ظرف زمان منصوب علامة النصب فتحة ظاهرة على آخره والتاسع كان سقال مسحان قلب واي وهو سوى اسم مقع واي للوقت وقت وسقنا الذي وقت قاصو يبتدي وكب اللابناي من الزوال قرحة دحبرتن كمركي كل حتى كب اللابناي إلى نصف الليل هبينك نسكي سلقا قارو مساحيل قاسيا تقول وحلا وصل القدار tareenkii wuxuu nala gaaray bina anaga masaan galab ayuu nala gaaray oo sidaan tareenka u saarneen galabtiaba soo gashaba taas waa fasir waxa kale fasir kale wasal alqidaaru tareenkii waa gaar wasal alqidaaru bina wasal alqidaaru tareenkii wuxuu na gaarsiiyay bina anaga masaan galabtiyo na gaarsiiyay meeshii aan rabnay markaan tareenka raacnay meeshii aan rabnay tareenkii galabtiyo na gaarsiiyay ama intaas ma ahane tareenkii sida uu noola socday galab uu na gaarsiiyo oo galaba ma taqaanaa noo soo gashay anagoo wili tareenka saaran qidaarku wuxuu nala gaaray waay marka galab uu nala gaaray oo sida uu saarnay galabtii soo gashay fasir kalena waxa tareenkii wuxuu na gaarsiiyay meeshaan rabnay galabtii uu na gaarsiiyay وصل فعل ماضي فاعلك أما وصل فعل ماضي مبني على فتح الله محله من إعراب القدار وفاعل بنا جار مجرور وصل كتعلجي مساء ظرف زمان منصوب علامة النصب والعاشر محوا كنت وناد أبد واي ولجيس والحادي عشر كان كوتوان أبدا واي أبدا واي اسكو فسر ولجيس أي كشيء هنا وقت ولجيس واي أبد وكل مد كستو منهما أبد كمذا اسم مقعواي للزمان الزمن أيو مقعويها زمن كيولي بقى المستقبلي السوق بلاي وهذا كدب صوص هذا الذي مستقبل كاسو لا غاية دمانش لانتهاء دمانشيس أنسوان meelo ku dhamaado ku hadaf u ah oo waqtigaas ku dhamaado dhamashiisa malaha qaayta yolo ay dhigi jireen culimada waxa la qaayta yolo la intihaay dhamashiisa uma sugnaayeen taqulu waxa la asxaabul ashfara
kuwa sharta badanna la saaxiibi maayo abadan weligay balaayada sharta wadata iyo dadka qariban iyo ciyaal macno malaha iyo muxuu ahaa kuwa asxaabul fitana iyo muxuu ahaa mar walba meel xun taagan raggaas ha saaxiibi maayo walaa aqtarifu ma kasbanaayo ashara shar kasban maayo amadan weligay oo walaa aqtarifu shara shar la kasban maayo ama la imaan maayo amadan weligay ladan waa naafiya asxaabu waa ficil mudaaric faacilka waa ana ada shaara waa mafcuul bihi abadan waa dharfu zamaan لا أقترف اللام والنافية أقترف وفعل مضارع فاعلك وأنا أشر ومفعول به أمدا وظرف زمان والثاني عشر كان لو يطمن حينا وقتي وهو أسكن اسم مقعوا لزمان زمن سكن هذا زمن كو مفهم قرصون ولبا من القرية زمن مفهم قرصون غير زمن كو معلوم زمن كو غير معلوم الابتداء بالله بشريسة أن لا أقول ما لو قبل هذا لما يقال ولا الانتهاء غير معلوم الانتهاء لما شيء سنة لما يقان حلو بلوضي حلو لما هذا هو يقان بقى علماء هو اسكو هسان كوا فرت سنة وحبي الشيء كوا وحبي الشيء لكن وح الله هو ما تقول وحلا صاحبت علي أن لا صاحبي حين وقتي أن لا صاحب من الدهر وقتك كمدا أما الزمن كمدا صاحبت فعل وفاعل عليا مفعول به حين ظرف الزمان منصوب من الدهر جار مجرور كاس متعلق بصاحب ويلحق بذلك أرنكاس وحل هالشيء ما أشبهه وحي شبهه ومن كل اسم كاستكمل اسم كاسو دال تسنى على الزمان زمن تسنى سواء وحاس كمل كان مختصا مختص ولا خاص هي ولا يقان ماشي قبل يعني وقت مختص هو معين ولا يقان مثل ضحوة محوى برقدي وكله يوضحا برقدي وكله واسكم ضحوة من الضحى لقى كان وبرقدي وضحا برقدي إيضا واسكم ضحوة وضحا برقدي أم كان مبهما نهاية مثل متقرصون مثل وقت وكله وقت ماله قبل لو متغنى ماله كل ما متغنى يو ساعة وكله يو لحظة وكله ساعة من الوقت هذه الولادة ساعة ده سحلي قبل لو تمتها ما ساعة دي لصودا متيكور هيسا مش شلي ساعة هذا متغنى ولحظة لحظة وقت قدر ير أما البرخص وزمان زمن ماله قبل لو ماله كل ما متها وبرهة مدير أنا مدة وقت كمده مدير ما هنا وبرهة مدة وقت كمده برهة هو جمع برهة واي من عنده جمع بره واي محوها وانا مدة من الزمن وكاسا وعلى كأنه من بريها لقى كأنه وانا جمع برهم فإن هذه تنو هي وما مثلها وحل لمدها يجوز نصب كل واحد متكستا كمدا نصبه سايا واجبايا ومنها كمدا كل واحد متكستا ومنها كمدا على أنه أسيق مفعول فيه نويها لغو النصبية مفعول فيه وتعبير كوفيين ظرف زمانية ظرف مكان نواب بصريين مركا ظرف زمانية ظرف مكان إيه مفعول فيه هدي إنه يسكن مدهين وفهم ظرف المكان هذا كان باب ظرف مكان كأهو باب يهي قال وحور الشغج رمي وظرف المكان ظرف مكانكو هو ظرف مكانكو اسم المكان مكانكي اسم كي سوهوري بوسكي مجعيسة اسم مكانكي المنصوب الله قردقي بتقدير معنى في قدرتان كده يونك السوغنية اسم كاسو او بتقدير في جار مجهول كاس منصوب كتعلق ميسيد سيدا دad fara badan aad ku arki doontay culamo fara badan ama kutuba ku tacalujinay waa laga fiican yahay in jaaru majhuulkaas mansuub lagu tacalujiyo sababtoo ah fi qadiritaankeeda wax lagu nasbiyahay noqonaysa yani ismu makaankan macna fi la qadiro ayaa lagu nasbiyahay noqonaysa arintuna sidaas ma ahane waa jumlo cusub ay iska dhigaysa marka waxaad leedahay huwa asigu ismul makaani makaankii magaciisa waaye اسم مكان كالمنصوب ولا كردقي بتقدير فيه هو أسقو اسم كاسو بتقدير معنى في معنى هذا قدرتان كذا أيوكو سقنا هذي نحو وذلك نحو أمام هري أو كالي وخلف قدال وقدام هري ووراء قدال
waraada horena waa loo isticmaalaa marka qaarkood. amaama hore wa khalfa gadaal, wa qudaama hore, wa waraa gadaal, wa fawqa kor, wa taxta hoos, wa cinda agtaada, wa izaa qaabilkaaga ama kasoo horjeedkaaga, wa xidaa qaabilkaaga, wa tilqaa qaabilkaaga, wa thama halkaa, wa hunaa halkaan, wamaa shaygii ashbaha daalika arrinkaas shabaha. marka sheekh ajruumi halkan wuxuu ka gelayaa daraf makaan ayuu ka gelayaa. marka wuxuu leeyahay sheekhu wadarful makaani, booska darafkiisa ama booska weeliyihiisu, huwa asigu ismul makaani, makaanka magaciisa waaye. ismu makaankii almansuubu la kordhigay, bitaqdiiri fi, huwa asigu ismu makaankaasu bitaqdiiri fi, bitaqdiiri macnaa fi macnaheeda qadiritaankeeda ayuu ku sugnaaday. wadalika kaas naxwu amaama hore oo kale, wa khalfa gadaal oo kale, wa qudaama hore oo kale, wa waraa gadaal oo kale, wa fawqa kor oo kale, wa taxta hoos oo kale, wa cinda agtaada oo kale. cinda ag kaliyahay faa'iideynaysaa, hadda kaaf lama jirto, laakiin ag fasir muxuu ahaa gooniya ma naqanayso, jumla lagu qabta ayay ubaahantaha, oo cindadu idaafa ayay ubaahantaha. marka sidaas ayaan agtaada u leeyahay, laakiin cindaka inay ahaato qasab ma ahan. wa cinda agtaada, cinda waa ag marki la yidhaahdo, agtiisay naqon kartaa, agtaaday ahaan kartaa, agtooday ahaan kartaa, qasab maa in adiga kale kugu saabsanaato. marka wa taxta hoos, wa cinda agtaada, wa izaa qaabilkaaga ama kasoo horjeedkaaga, wa xidaa qaabilkaaga, wa tilqaa qaabilkaaga. marka izaa iyo xidaa iyo tilqaa waa isku mid. wa thama halkaa waa meel fog, halka, wa hunaa halkaan dhow, wa hunaa halkaan, iyo wamaa shaygii ashbaha daalika arrinkaas shabaha. واقول waxaan leeyahay sheekh maxamed muxyidiin cabdilxamiid, qad carabta waxaad soo garatay ama aad soo aqoonsatay fiima sabaqa wixii soo hormaray darfa zamaniyaad soo garatay. darfu zamaan waxa la yidhahdo waa inuu asiguna yanqasimu inuu qaybsamaad soo baratay ilaa qismayna laba qaybood, mukhtasin mid gooniye muxuu ahaa mukhtasin mid khaas oo gooniye, iyo wamubhamin mid qarsoon. wacarafta waxaad soo garatay ana kula waaxidin mid kastoo minhumaa kamida labadaas qaybood oo mukhtasir iyo mataqaanaa muxuu mubhamka kamida, yajuuzu inuu banaan yahay nasbigu kordhigiisa calaa anahu asigu muxuu ahaa mafcuulin fihi inuu yahay lagu kordhigo. waclam ogow hunaa halkaan ana darfal makaani darf makaanka lagu sheega cibaaratun ka waramid inuu yahay cala ism magac xaggiisa laga waramo, isimkaasoo adaali tusinaya cala almakaani boos tusinaayo, isimkaasoo almansuubi la kordhigay bilafdi lafdi lagu kordhigay, lafdigaasoo adaali tusinaayo cala almacnaa macno tusinaayo, macnahaasoo alwaaqici fiihi dhexdiisa ou dhacay, bimulaaxadati macnaa fi macnaheeda ka dareemideedana muxuu ay ku sugan, oo macnaa maca mulaaxadati macnaa fi la jira dhe. waxaad leedahay marka fiidaasoo adaalati tusinaysa calaa darfiyati weelnima tusinaysa, oo in wax ku dhex jirid, in wax ciido ay ku dhex jiraan tusinaysa. huwa asiguna ayadan sidii kii hore yanqasim waa qaybsamaa ilaa qismayna laba qaybood u qaybsamaa. mukhtasin waa kaasa, mukhtasin mid la khasisay ayuu uqaybsamaa, iyo wamufhamin mid qarsoon. ama almukhtasu kan mukhtaska ah, fahuwa asigu maa waaye lahu suuratun suurad leh, muuqaal leh, wa xuduudun soohdino leh, xuduuddaasoo maxsuuratun la koobay, yacni waa wax loo jeedo la arki karo, muxuu ahaa xuduud leh, meelay ku go-aan ay ku dhamaadaan leh, haddana la koobay oo la yaqaan. mithlu daari oo kale, guri oo kale, walmasjidi oo kale, walxadiiqati oo kale, beer, iyo walbustaani asendo ama beeraha waaweynka oo mooska iyo cambaha iyo muxuu ahaa timirta iyo muxuu ahaa canabka ay ka baxaan. waama almubhamu mubhamka muxuu ahaa fahuwa asigu maa shay waaye laysa lahu suuratun wax muuqaala lahayn, walaa xuduuda xuduud iyo soohdina aan lahayn, xuduuddaasoo maxsuuratun la koobay. mithl waraa oo kale, waraa wixii kaa dambeeya ilaa maa laa nihaaya ku dhamaataa. waa amaama horey oo kale, horena wix adiga kaa horeeya ilaa maa laa nihaaya, xuduud iyo suuradba ma leh, mana loo jeedo waa wax laga sheekaynayo,
لكن دار والو جيدا قري والو جيدا حديقة والو جيدا مسجد والو جيدا ولا يجوز ما بنانو أن ينصب إن النصب على أنه مفعول فيه إنه يهلقون نصب من هذين القسمين لبضان قيبات إلا ثاني كان لبض ما أهني كان مبهم كليها متقانا ظرف مكانه كان كليه ظرف مكانه ما لغون نصبيه وممنوع لغون نصبيه حتى هدي أي دعضو oo adaar iyo masjid iyo muxuu ahaa jumlo la geliyo jumladaas markii la geliyana muxuu ahaa la kordhigo daraf zamaanay ku kordhigan yihiin lama dhihi karo مثلا marka aad dakhaltul masjidan galay iyo wasakantul baytan galay iyo salaytul masjid aad dhahdo muxuu ahaa baytka maadaama uu kordhigan yahay masjidkuna uu kordhigan yahay muxuu ahaa ma dhihi kartid waa daraf muxuu ahaa makaan waxaa lagu nasbiyaa mansuubun binazci lkhaafid nazcu lkhaafid ayaa lagu nasbiyaa oo sakantu fil beyti ahaa laheed fiidiyaa laga jara albeytadiyaa la kordhigay dakhaltu fil masjidi ahaa laheed fiidiyaa laga jara almasjiday naqatay marka nazcu lkhaafid ayaa mataqaanaa lagu kordhigaya markii la raaco ra'yiga abu cali alfarisiyi iyo ibnu malik markii imaamu shaloobiyiin iyo ibnu xajib muxuu ahaa la raaco muxuu ahaa sheekhii la dhihi jiray sheekhii ahaa saaxibu kitaabi alkaafiya ibnu xajibkaas haddii la raaco ra'yigiisa iyo shaloobiyiinna waxaa lagu nasbinayaa daraf oo iyagu darafnimay ogol yihiin in lagu nasbi karo imaamu akfashna wuxuu leeyahay mafcuul bihinimo ayaa lagu nasbiyey marka muxuu ahaa waxaad ogaataa ra'yigaas laguma jiro imaamu mataqaana akfashna warkiisa qof uma rabto muxuu ahaa imaamu shaloobiyiin iyo ibnu xaajibna warkooda lama rabo culamadu waxay u badan yihiin abu cali alfarisiya imaamu muxuu ahaa ibnu malik ra'yiga ay ka qabaan oo ah in nazcu lkhaafid lagu nasbiyey marka haddii aad aragto iyagoo noocaasa waxaad ogaataa inaan darafnimo lagu nasbinayo nazcu lkhaafid wax la yihahda lagu nasbiyo nazcu lkhaafidna waxaa la yidhaahdaa jaaru majruur meesha laga jaro marka laga jarana kabacdi lagu nasbiyo waxaa jira 16 ficil oo 3 gabay lagu kulmiyo oo mataqaanaa qaataan hal mafcuul muxuu ahaa halkaas mafcuul na mararka qaarkood jaaru majruur muxuu ahaa uga gudba jaaru majruurkaasna inta la jaro nazcu lkhaafid lagu nasbi karo laakiin hadda muxuu ahaa daartan iyo masjidka iyo xadiiqada iyo bustaanta haddii ficil laga hormariyo isla markaasna la kordhigo ha u malaynin inay muxuu yihiin mataqaanaa daraf makaan waa nazcu lkhaafid aa lagu kordhigay intaas waa ujeedadeen وكذا ولا يجوز ينوجك تماما ولا يجوز ما بنانو أن ينصب لو كرر على أنه مفعول فيه نويا من هذين قسمين لبضان قيود إلا الثاني كان لبضان ما هنا ومفهم كا وهو سجن المفهم وين أما الأول كان وهو المختص وكان كمختص كهاي فيجب وحواجب جره إن لجروا حرف لو جروا بحرف جر حرف جر لو جروا حرف جر كاسي يدل تصنع على المراد الضنطة حرف جر كان إن لجر واجرتاي النزع الخافض مركز قلنا في سيدة دانك سهر لاي نحو اعتكفت في المسجد وكلا وزرت علي أنا زيارتي في داره أنكو زيارتي اعتكفت فعل وفاعل في المسجد جاء المجرور اعتكف تعالج زرت فعل وفاعل علي مفعول به في داره زرت تعالج جار مجرور هذا هو إضافي وقد ذكر المؤلف وحو الشاقي من الألفاظ حالي كمتها الألفاظ الدالة تسنيسة على المكان تسنيسة 13 يوشاقي لفظة من لفظ يلا 16 لفظة يوشاقي الأول كانوا أمام هرت نحو جلست وفريست أمام الأستاذ كهرتي سيان فريست مقدما حالا أنا مد إدبله أما أنيغو إدبله مد إدبله أما اللي إدبيي مؤدب ومتقانا اسم مفعول لكن محوها ujeedadu waa qofka asigo qofku iska hadlay oo idabaan leeyahay iyo wali idbiyo wax weyn kala ma duuna laakiin muxuu ahaa markii luqad ahaan la leeyahay waa ism mafcuul جلس فعل وفاعل أمام وحلا ظرف زمان ظرف مكان منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة على آخره ظرف أمام مضاف ألف ساد مضاف إليه
الظرف وما أضيف إليه متعلم بالجلس مقدما حال منصوب علامة النسب فتحة ظاهرة على آخره. والثاني كان لبا أن خلف وايور قدال نحو صار المشاة كل وقت كسعناه محوها واسعدين خلف الركباني كو كرسنا فردها إيه كرسنا إيه قارياشة كذا شو إذا مك محوها محو إذا مك وحاجر ما تغنى كو مشاد ليراه محوها إذا مك عكته إيه كو كله كو أنواع إذا مك عكته المشاد وإذا مك عكته muxuu ahaa rugbaantuna waa kuwa wax korsana ama gaariyaal ha korsanaan ama farda ha korsanaan. marka wuxuu leeyahay dadkii mushaada carabta xilliga hore marka dagaalada la gelayo fursaan iyo waxay lahaayeen iyo mushaaday lahaayeen. mushaadu warmahay u hay jireen iyo falaarahay u hay jireen iyo gamuunaha waxa weeye mataqaanaa warmahaasay mataqaanaa fardaha kale oo cadowga soo weerar indhaha ka geli jireen. muxuu ahaa fardaha hoostoodana inta kasoo baxaanay sihaamta eber uga dhigi jireen. marka mushaada kuwaas ayaa la yidhahdaa sihaamta wata ama mataqaanaa warmaha wata. kuwa fardaha wata wax weerarana mataqaanaa rugbaan ayaa la yidhahdaa. marka waa sidaas saas ay lahayd. صار المشاة خلف الركبان. صار فعل ماذا المشاة فاعل كدك خلف ظرف مكان خلف مضاف الركبان مضاف إليه مشروع على مجره وعلى الركبان وعلى هذا مركه خلف مضاف الركبان مضاف إليه مشروع على مجره كسرة ظاهرة على آخره. ركبان وجمعها وملاين إنهم مثنيين oo alif lagu gudaha oo marayn marka waxa waaye waa jamac waa loo idaafiyay waana ka daahiraysa وضرف ما أضيف إليه وحقوق تعلقها يا سارة. والثالث كان سدحت قدام ونحو مشى الشرطي نمك الشرطي كها أم ببوليس كها وحو الصعدي قدام الأمير أمير كورتيسا أمير كمركز السود وينا ملحظة ولا السود وينا مركز السود وينا أسكر أيها هرصعات كوانا وقدان السعودان ونمك هذا منطقنا دبعت هذا أدونك كلا كل ما xilliga hore sidaas ma jiri jirin amiirku asiga safka hore ku jiri jiray haday dagaal tahay iyo haday wax kale taaba safka hore ayuu ku jiri jiray haday dad dhimanayaan asiga dhima jira marka hore waati Daariq ibn Ziyad oo mataqaana markii uu meesh tagay muxuu ahaa muxuu Andalus muxuu ahaa badii uu ka gudbay Jabal Daariq waati uu yiri inta ka gubay mataqaana muxuu ahaa safiinadii ay ku imaanay uu yiri al-bahru wuxuu yiri al-adu amaamakum wal-bahru waraakum wuxuu wax cunto ah inaad iyaga kuwa cuntada iyaga aad ka heshaan ma cunto kale helaysaan ma jirto kadibna waa u khudbay wuxuu yiri hadii la idilo wuxuu yiri meeshaas ka sii wada marka safka hore ayuu ku jiray asigoo dadka uma daba marin hadii dadka u daba marin lahaa waa badbaadi lahaa asiga marka safka hore ayuu galay waa dagaalamay away 10 kun oo wata ciidamada waana ma taqaana jibi ragay kabacdi Musa Nusayra u tagay waxyaabo badan la caawiyay laakiin shaqo fiican ayuu qabtay muxuu ahaa Daariq muxuu ahaa Ziyad marka raggaas safka hore ayay ku jiri jireen muxuu iga hormar aniga gadaashaada aan joogo hadii balaayo jirto adiga ha kugu dhaceeno iyo fallaaraha wixii la soo ridayo dadka kamiinka ku jira adiga eber ka dhiga aniga aan badbaado sheeko soconaysa ma cadaalad xumo ayuu ku dhisantay masha shurdigi ama ninka booliska ah qudam al-amir amir kortiis ayuu socday waraabicu kana fara waayuri نحو وقف المصلون كوي دكناي وحي واستاغين بعضهم قاركودا استاغي ورا بعض قارك كلا شولا وقف المصلون مصلين تي استاغي بعضهم قاركودا استاغدو كبدل ورا بعض قارك كلا شودا ايو استاغي وقف فعل ماذا المصلون وفاعل واوضا صوت نيابه عن ضمه يا لو غدا واجع مذكر سالم نون تنوعون عن التنوين في الاسم المفرد بعضهم بدل المصلين واي وبدل مرفوع بعض مضاف له مضاف إليه من عرضهم في محل جر والميم علامة جمع الذكور وراءنا ظرف زمان ظرف مكان منصوب به وراء مضاف بعد مضاف إليه مشهور والظرف وما أضيف إلينا محوها وقف كتعالج. والخامس كان شناد فوق ويركر ونحو جلست وفريس فوق الكرسي قدوشي سيان فريس جلست فعل وفعل فوق ظرف زمان منصوب فوق مضاف الكرسي مضاف إليه مشهور على مجره خاصة ظاهرة على آخره. وسادس كان لحالنا تحت ويري هوس نحو وقف القد محوها بصدي أمام كلالكي وحو استاغ تحت المائدة ميسك عنطده هوستيس
وقف وفعل ماضي القط ومتقنا فاعل تحت ظرف مكان منصوب تحت مضاف المائدة مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره وظرف ما أضيف إلينا وقف تعالى وصار كنت طبعا عند وايور نحو لمحمد منزلة عند الأستاذ منزلة أما الدرجة أيا لمحمد محمد سقناته عند الأستاذ كاكتيسة معلن كاكتيسة درجة كلها هاي وهاي qofku markuu qof khiyaar yahay diinta baranaya wax walba ku fiican waxa way darajo leeyahay darajo muhiim darajadaasna waa la iska fahamsan yahay waa darajadii mataqaana Abdullah ibn Abbas saxaabadii kale ka soo kaxaysay Umar ibn Khattab agtiisa soo fariisatay mar hadaad wax fahmaysid qof wax yaqaan tahay maskaxdiisu fiican tahay darajaad ku leedahay ahlul cilmiga لمحمد منزلة عند الأستاذ لمحمد جار مجهول سواء خبر مقدم أو كتعلقها أو كائن منتقنا كائن وهو خبر مقدم مرفوع علامة رفعه منزلة مبتدا مؤخر عند ظرف مكان منصوب علامة النسب عند مضاف الأستاذ مضاف إليه وظرف ما أضيف إليه منزلة متعلقة والثامن كان سديدنا مع وايور نحو سار مع سليمان أخوه سار مع سليمان لجيران كيسا وحا سعودي أخوه ولا الكيس سار فعل ماضي به مع ظرف مكان منصوب به مع مضاف سليمان مضاف إليه مشهور وعلامة جره الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع من الصرف العلمية وزيادة الألف والنون أخونا فاعل سار مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره أخوه مضاف لها مضاف سيد اسمان أخوه فاعل سار مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن ضمة لأنه اسم من أسماء الخمسة أخوه مضاف لها مضاف إليه من على ضمة في محل جر وعلى وظرف ما أضيف إليه متعلق بسار والتاسع كسر أن إذا ويوري قابل نحو لنا دار أي لنا أنا نسمعت إذا النيل وبيجا النيل كسورجيت يعني كسورجيت كيس أحد وبيجا النيل كسورجيت كيس نقول كلنا هاي واي معنى جملة كلمة لنا أنا وحن لنا هاي دار نقول أيان لنا هاي إذا النيل وبيجا النيل اللي يرادو كسورجيت كيس لنا جار مجرور كسو وحقوق تعلق يا خبر مقدم في محل رفع خبر مقدم دار نوع مبتدا مؤخر إذا وظرف مكان منصوب إذا مضاف إليه المضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة وحور والعاشر كنت بنان حذا ويري نحو جلس أخي ولالك يا فريستي حذا أخيك ولالك قابل كيس جلس وفعل ماضي أخي فاعل مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة على ما قبل يا المتكلم منع من دور اشتغال المحل بحركة المناسبة أخي مضاف يا المتكلم مضاف إليه منع على السكون في محل جر حذا أنا ظرف مكان منصوب علامة النسب حذا مضاف أخي مضاف إليه مجرور على جر كسرة مقدرة على ما قبل يا المتكلم منع من دور اشتغال المحل سبا حذاء أخيك سيدا اسمان حذاء مضاف أخيك أخي مضاف إليه مجرور علامة جر الياء نيابة عن الكسرة لأنه اسم من أسماء الخمسة أو اسم من أسماء ستة أخي مضاف والكاف مضاف إليه من على الفتح في محل جر وظرف ما أضيف إليه متعلق بالجلسة والحادي عشر تلقاء النحو جلس أخي ولا الكافريسي تلقاء الدار أخيك ولا الكجرجيس كسورجيت كيس يفريسي جلس فعل ماضي أخي فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من دور اشتغال محل بحركة المناسبة أخي مضاف ياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر تلقاء ظرف مكان منصوب وعلامة النسب فتحة ظاهرة على آخره تلقاء مضاف دار مضاف إليه مشروع على جر كسرة ظاهرة على آخره دار مضاف أخيك أخي مضاف إليه مشروع على جر الياء نيابة عن كسرة لأنه اسم من أسماء الخمسة أخي مضاف والكاف مضاف إليه من على الفتح في محل جر وظرف ما أضيف إليه هنا متعلق بالجلسة والثاني عشر ثم الكاس ويوري نحو قول الله تعالى وأزلفنا وسودوين ثم الكاس يعني الآخرين كوكا لكسودوين أزلفنا الواو بحسب ما قبلها دازنون أزلفنا فعل وفاعلون ثم وحل هذا ظرف أي وحل هذا ثم ظرف مكان مبني على الفتح في محل النصب
ثم مضاف الآخرين مضاف إليه مشروع على جره الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها خلافا للتميمين أما لليربوعيين. وعلى مركب والنون عوض عن التنوين لا نجمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وحلله والظرف ما أضيف إليه متعلق بأزلف نادى. وثالث عشر هنا ويري نحو قولك هنا هل كان نحو قولك وقال جلس محمد هنا هل كانوا فريستي لحظة وحير أما البرقصد أما وقت يرده وأنا لحظة والحالة استعمالها سيدا هرو صو الشيء عرفت روحي استعمال جينا وقت اسكير البرقص استعمال جيرين oo nin ilbiriqsi meel fadhiisanayo ma jiraba ilbiriqsi intaadan dhulka gaarina ayaa la gaaraba marka loolama jeedo ilbiriqsi ee laxdatan xoogo waqti yaraa loola jeedo. jalasa ficil maadi maxamedun faacil huna darfu makan mabniyun cala sukuni waxaa lagu ishaaraa fi lmakan قريبة لغو إشارة. هنا ظرف مكان مبني على سكون في محل نصب لحظة وحل هذا ظرف الزمان منصوب علامة النصب فتحة ظاهرة على آخره. ظرف الزمان هذا كما جينا لكن ما دام كلمة يسوق هنا نوع ظرف مكان لحظة نوع ظرف الزمان أو لحظة زمن أي كشيء كان يسا. باب الحال هذا كان باب الحال حال كوباب هاي الحال حال كل شيء جاي هو أسقو الاسم اسم هاي اسم كي المنصوب ولا قرد اسم كي المفسر فسره لما الذي كيف فسره إن بهم قرصونا ذي أو من الهيئات حلو كمية ما قاسو أسقو هيئاتها كمية أما قالب كقف وكسرنا كمية قرصونا ذي نحو وذلك نحو قولك عليه هذا الكاوكلي جاء زيد بن زيد أي مدرك كمان أسقو قرصا يعني حال وكرسيها علماء سمعوا لكن حالك وحلو لجيدا أسقو أما أسقو ده أما يدور ده أما marba haddii aad asigoo tiraado waa xaalaysa sidaasay xaalku yahay xaalku qaabka ayuu ka sheekeynaa asigoona waxay ka sheekeynaysaa qofka qaabka uu ku sugnaa jaa zayd ibn zayd ay mid raakiban asigoo korsan jaa ficil maadi zaydun waa faacil raakiban waa xaala mansuub jumladaasna waxaa leedahay waljumlatu min alficli walfaacili fi maxalli nasbin maquulu qowl aad leedahay وركبت الفرس فرس كان كوري مسرجا حاله يهي اما مسرجا اسيغو لا كوري اما محوا كبد يا وخي لا ساري لو راعي لها وخي لا اسك خجي لها فرس ولقيت وحان لا كل مع عبد الله ان لا كل مي راكبا اسيغو كورسن اما راكبا انيغو كورسن iyo وما اشبه ذلك kaas wixii shabaha sheekh halkan xaalo ka gala xaalo horta waxa la dhamaa عليه الانسان من شر او خير oo kayfa xaaluka markii lagu leeyahay xaalka uu seeyahay maxaad ku sugantaa dib miya ama wanaagaad ku sugantaa loo jeedo taas waa xagga luqada ilaahiisa al-ism al-mansub al-mufassir liman bahama min al-hay'at ya'laha wa muxuu ahaa mushtaq muxuu ahaa tamyiizka iyo cagsiisu yihiin oo tamyiizku waa jaamid kanuna waa mushtaq mararka qaarkood inay ka baxaan waa laga yaabaa tamyiizku inuu jaamidnimada ka baxo kanuna mushtaqnimada ka baxo jaamid gala waa laga yaabaa laakiin ma marka waxaad ogaataa xaalku inuu mushtaq yahay ama muawal bil mushtaq oo tamyiizkuna uu jaamid yahay ama muxuu ahaa jaamid oo yahay waa kaasa marka sheekhu hadda halkan sharxi ku galay aqoon waxaan leeyahay al-xaal xaalka sidoo kale waa kalimo mudakkar lafdiga ka laakiin jumladeeda muannas laga dhigo على هذا الحال لا حال كان أن كسرنا على هذه الحالة مديس على هذا الحال لا هاي مدك لو جملوين كل سنة تعالوا قلنا ما نفيا لك دقائق مركا إن أصيغ لفتجيس للتذكيريو جملة راعي سنة للتأنيث يصيدها سأفصح في اللغة أنا أقول وحال الحال حالكم في اللغة بحذا ما عليه الإنسان والإنسان كسرنا هواي ومن خير خيرا وما شر شرا وأصيغ في اصطلاح النحاة النحوليد اصطلاح ولا موحي أبا يكون شيء النحوليد إن يكون مرعبانا عبارة كورمد واي عن الاسم اسم لقى ورمو اسم كي الفضلة ديرات كأها ديرات وحكوية هي عمدة من ما كلمة أو واحد كلمة أو مهم سنة سجى مادان ومبتدأ خبر عن بفعل فاعل معه لكن مرة قاركول ولا باهي ولا جمع مهرم فضل مرة كوية عن عمدة كلمة هنا لو لجينا ما عن لا جمع مهرم ما معنى هذا وعلى هذا على اسم كي المنصوب للنسبي أو لقرد ولبا المفسر فسره لما شيء بهم قرصونا أو من الهيئات هي راها كمذا كانوا مفسر مفسر للهيئات تمييز كانوا مفسر للذوات وحسب أنت سيبك للدوين كانوا هي يقاب كقف كوي مذو فسرة وقولنا أنا قول كان على اسم أنه يشمل وحو كل من آيات الصريح كنعت مثل ضاحكا وكلا في قولك قول كاكسوغن جاء محمد أيمن ضاحكا أسيقو قسلايا محل ويامد قسلايا جاء فعل ماضي محمد فاعل ضاحكا مفعول عنده ضاحكا حال منصوب
ويشمل وحو كل منها المؤول كان لغو أولي بالصريح كان على لغو أولي أو لغو فسري مثل يضحك وكله في قولك قول احسب ما جاء محمد أي مدح يضحك حال وقسله يضحك أسيق قسله marka yadxakudaas ayaa mataqaanaa daaxikan lagu fasiraya فإنه أسيق في تأويل قولك كفسرتان كيس ضاحكا لغو فسرأي كسوية وكذلك سيدا سيا قولنا أنا قول كان هذا جاء محمد أي من معه لجرا كيس حال أخوه ولا الكيس أويهي ومعه مع جيسة أخوه ولا الكيس كسوية جاء فعل ماضي محمد فاعل مع ظرف مكان منصوب مع مضاف لا مضاف إليه وظرف ما أضيف إليه متعاون بجاء أخوه مضاف عنده هذا ويسوي لقولك كسوكنا مصاحبا حاله يعمل الله صاحب إلى أخي ولا الكيس صاحبنا محل هذا متقنا محوا حالة منصوب لأخي جاء المجهول كان مصاحب التعلج وقولنا الفلط عنه معناه أن أسيق ليس جزء ما من الكلام هذا الكمدة محوا هذا الكمد ما يعني جزء مهم جزء هاي جودها واسوقه لكن جزء مهم كهي ولا كذا ليس ما جزءا مهما من الكلام يعني أصلا فخرج به الخبر يا قبحي وقولنا أنا قول كنا خبرك اللي وهو قبحي مرك اللي خبرك جزء مهم وكي هي الجملة أو مبتدأ خبر الآن مش شقي كريو فعل كنا فاعل الآن مش شقي كريو وقولنا أنا قول كنا المنصوب عندنا خرج به وحا قبحي المرفوع كي لقضي والمجهول كي لهاس كده waxaan u malaynayaa casharka waqti badan ma haysano waynama qowluna ayaan ku ekaysinayna waynama yunsabu alxaalu xaalka waa la nasbiyaa bilficli yaa lagu nasbiyaa ow shibhi lficli ficilka kan waxa shabaha ayaa lagu nasbiyaa ka ismi lfaacil faacilka oo kale iyo walmasteri masterka oo kale iyo wadarfi darfka oo kale iyo ismu lishaarati ismu ishaaraha oo kale waxyaabahaas ayaa lagu nasbiyaa uu leeyahay oo kaasa 7 shay ayaa wax laga xaalayaa lix waa la isku waafaqsan yahay kan toddobaad imaamu waxa wata siba weeye oo in mubtada wax laga xaaleeyo culimada jamhuurta waxay leeyihiin khabara wax laga xaaleeyo mubtada laga ma xaaleeyo mubtaduhu caamil macnawi ayaa rafciya caamilkaas macnawiga inta mubtada rafciyo waxna laga ma sii xaalay laakiin imaamu muxuu siba weeyna wuxuu leeyahay waa waxay kariyaa sababtoo mar walba hadii khabarka wax laga xaaleey lahaa خبر كاسي نفتي عامله مبتدا عامله سوما مبتدا هنا عامله ابتدائي عامله سوما مر والبا ابتدائي وحي سو شوناي marka imaamu siiba way wuxuu leeyahay mubtadaha waa laga xaalay kara awoodaas waa leeyahay kuwa kalena waxay leeyihiin jamhuurtu maya